caawa oo ay tahay bisha September 10 ayay kaga buuxdaa 12 caawa madaxweyne xasan sheekh وينو حفيز كبنيا برسوا حلك كوريجيا رئيس البرلمان وينو كوريجيا سيدا دستور قبو الميل جاركا قدو كيسا سقاشن هي كو أفرت سنة كبحدو أول كسقاشن هي شن أو شيء جاي الحلك كوريجيا يمر بحفيز كبنيا رئيس البرلمان وينو كوريجيا أما رئيس البرلمان كله كسي حاجة أما كان كله كسي حاجة هدوك عدد دارتو رئيس البرلمان كسبيكر أوف ذا هاوس وصوب مدرسة كمل هدوك عدد دارتو وين كوريكتا وجانك برلمان وين كوريكتا واحد اللعبة وولي هرا الله قاعد مجري سجالك أوجست إمس على الجوال باليوم مالي بالجوال واحد اللعبة أو شغاء أو سعوتها مجرد أنا أقول ما أركين دور شدة ضبن وحان أركين كرسي ما ضبن وحفيز كلوسي جوا وأنا موقتا هدي الحمر هدي والف جوجي ما أنت اللي جايسين كي والله أنا مدحويني والله أنا وقامنا يمر بيسوق إيجارين dabadeedna waxa la yiri bal waa loo yeerayo dib baa loo ceshay waxa hadda ka soo baxayna wali lama sheegin waa arki doonaa dalka crisis buu ku jiraa constitutional crisis laakiin dawladda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed yaa bas 20 sano dawladda waa joogeen maamulana waa u dhisan yihiin inta ay dawlad lagu kalsoon yahay doorasho imaanayso doorasho kursiimad dad ban aqbali mayno xilka ninka habanayo هوديبو بدون كبرلمان كهوديبو أنا قاعد تشانينا إيش عالم كنا وحيالها قاركود أو فرع جلسي وهذا الواحد بدن قلتمين هجوجس أفر سنة أو خسارة أفر سنة أو إنجويسم كان دولة إنستوشن هي هذا من الحوق الأساري أفر سنة أو باللغة أو هنتدي مجورتها هاي دولة الصومالية ويكده حش استعماركي إلى الدولة دي إسكدمية إلى تي محمد سيد قدميسي الحراشي انتي بدنيد الحراشي وعاوة وحشرعي الله مري سو برلمان كيجوجو برلمان كي ولا قتل لافسدي او فنكشن كي سو دن لا توري iyagoo wax kala ka jirin ka bacdi markii ay madaxweynaha ku eedeeyeen khiyaano qaran oo la dhex galay gacan ka hadal iyo faragelin iyo kala dulaal iyo malaal la dhex galay haddana wax u dhismi waayeen nidaam qabaliya aan horay uga afeefanay waan wax badan ka hadlay inuu dad kala qaybiyo wuxuu soo keenaya ma jirto nidaam qabaliya waa kii 13 leegada haddana xafiiskay ku dhagan ay ka tanasuleen oo Soomaali ka dhaadhiciyeen dowladnimada loo gaar dib u noqosho waxa hadda laga bixi waayay waxa leeyahay aqalka sare reer baa inta helaya kuwa kale inta helaya wareede adduunka waxa lagu dhaqmaa qaynuun sharci islaamiya oo sunnaha iyo quraanka waxa ku yaala la raaco ama xeer dadku degsado oo aan khilaafsanayn iyaga reer baa inta dheer reer baa inta laga dhigo waxa lagu daro inflation and joogsanayn inflation lacageed baanu la ciirsanayn inflation qabiil oo baanu saguna awal ka soo kabanayno ka soo soconay inflation madax iyagu qabiil isu diriraayo isu haysanayaan nama midlaan noomana maqna mana naga wakiilaha laakiin nasiib waxaan ku leenahay riba carafa ummadda Soomaaliyeed halkaan waa wada gaaraya kuwa carafa taagan hay u soo duceeyeen kuwa Soomaya birri oo carafa ha duceysteen aawa hal duceysto in Ilaahay naga hor dhaqaajiyo kuwa hadda meesha jooga oo Xasan Sheekh naga hor dhaqaajiyo iyo kuwa raba inay xafiiska wali madaxtooye dib ugu soo noqdaan iyagoo isticmaalaya hanti dawladeed iyo awoodda dawladda iyo amniga iyo ciidankii iyo wax walba iyo influence-gii midba isticmaalaya Ilaahay Soomaali u dhiibo cid ka naxaysa oo waxa ay u baahan yihiin fulin karta oo Ilaahay la kaashata oo nabadgelyo ku soo waarta oo dadka dib u heshiisiin u samaysa oo kuwa xataa wax qarxinay wax dilaayo albaab u furta laga soo noqdo oo rajo gelisa in dadku dib uga noqon karaan oo aamini karaan hadii kale inta cid ciil qabto waligood ka ciil qabaaya ku biiraya dhibaataduna waa sii soconaysaa ummadina waa dhamaatay maanta waxa arkayay qolooyinkii xamar joogay oo kamid ahaa coalition for change ururkayga qaybta xamar isugu timi oo wadooyinka xamar kaligood lugaynayay iyagu waa liibaaneenoo hotel bay ku xiraayeen oo exercise bay heleen kaligood soconay maanta waa lugaynayay laakiin waxa la yiri gaadiidkii baa loo diiday wadooyinka maray gaadiidku dhawaan maray maalmii ciida lagu jira haweenkii haruurtooda wax soo gadan lahaa waalidkii odagii shaqo tagi lahaa
dadkii isu laalaaban lahaa suuqyadii dadkii ganacsiga ahaa badeecada keenay qofkii jirada isbitaal la geyn lahaa meel la maro male waxa la magaalooyinka waa la xiray mise xiraan magaalada waxay tahay magaalada saa loo xiray hadda maxaa shirka loogu qabanaya hadday basaas tahay ma joogtaa qiimaha ma ku kacaysa ma joogtaa in dadkii Soomaaliyeed lagu ciqaabo magaalada xamar sida loogu ciqaabo in shir igad lagu qabto meel kale lagu qabto dawlad goboleedyada mid lagu qabto oo midga la qabto waxaan u maleeyahay magaalahan waxa ugu yahay cadaadaha lagu qabto amaanka waa la soo karaa wadooyina la xiri maayo ha lagu qabto degal garow halkii degal Kismaayo halkii degal Baydhabo aeroboortka madaxweynuhu joogaa waliga aeroboortka Baydhabo lagu qabto degal xalalaha lagu qabto dadka diyaarada ka soo degayaan dadka yaan la cadaabin marka cuqubadaas dadka loo geystay oo imaamihii Ilaahay barakeeyay kamid ah waxa moodeen meel ku dhacaya waxa waa soo baxay waana ku dhacaya wixii digeysatay annaga Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu soo gaarsiiyo inta waxa geysatay kaliya ku koobo marka waxaan haawo soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogeene waa galbatay midda soo socota ka fikira waxaana asaas u ah xildhibaanada aad soo dooranaysaa cid inay masli ka dhacaato oo masiirka Soomaaliya ka saari karo oo kuwii markii 60kii xorriyadda la qaadanayay baarlamaankii ku jiray oo kale la isaga jiro ha ahaadeen dad maartay looga gamay karo masiirkiina uga gamay karaan uga seexan karaan oo inay masli kara oo inay dooran karaan cid inay masli kara inay xuli kara doorta maanta jaalsaystaan waa odayaasha haddii kale sida arki jiray oday walba inta lala hadlo hebel ii soo saar ama qabiil buntiris ah intuu galo mid aan waxaraaba loo dirsan karin inuu soo xirayo hageeyeen meesha idinkaana idinku soo noqonaysaa marka cirib dameed xumadu idinka iyo caruurteena iyo mustaqbalkeena Soomaaliya waxay noqon doontaa Ilaahay naguma keene mid loo haro waxaan maqli jiray Soomaaliya ku duceysay Ilaaha noo haray Ilaahu Soomaali nasr u soo Ilaahu dhibaatada ka saar Ilaahu fariqeeba uf Ilaahu maalmihii barakeysnaa baan ku jiraaye naga aqba Ilaahu waxaan dib mooyee aan faa'iido noo hay naga horleeh Ilaahu naga horleeh Ilaahu naga horleeh leeso sharaxaya waxay qortay ma jiri 4 sano